Farxiyo kaba yare si toos ah ayay u garnaqsatay, waxayna iska fogeysay inay tahay qof dulli ah oo aan haba yaraatee kaalin ku yeelan karin toosinta bulshada. Waa sida fanaanka ay ka aaminsan yihiin Soomaalida ayay tiri. Haddaba haddii aad doonaysid muuqaalkan inaad ka bogato, waxaan kaa codsanayaa inaad kusoo biirto channelkeena, subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto. Ha naga ilaabin fanaaniinta Soomaaliyeed, kuwii hore, kuwii dhexe iyo kuwii dambaba. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ka aaminsan inay yihiin dulliyiin, hadba bulshada kaalin xun uga jira oo aan wanaag marnaba lagu tuhmeynin, halka qaar badan oo bulshada ka mid ah ay u arkaan kuwa ugu wanaagsan ee iminka bulshada wacyigelin u sameeya. Fanaaniintuna kuwa xun iyo kuwa fiicanba ay isugu jiraan, oo rag iyo hablaba leh, isla markaana dhammaantood ay yihiin kuwo markaasi wanaag laga filan karo, bulshada kaalin wanaagsan uga jira, isla markaana habdhaqan wanaagsan leh, iyadoo kuwa yar ee habdhaqankooda uu xun yahay aan lagu eedeyn karin waxa ay sameeyaan fanaaniinta oo dhan. Farxiyo kaba yare oo toddobaadyadii ugu dambeeyay dagaallo xoogan la gashay shakhsiyaad kala duwan oo baraha bulshada caanka ah iyo kuwa aan caan ka ahayn ayaa iminka garnaqsatay, waxaana ay soo qaadatay warbixino kala duwan oo Soomaalida quseeya, iyadoo Soomaalida u sheegtay wadada saxda ah ee xilligan ay ku habboon yihiin inay aadaan, isla markaana waxay meesha ka saartay in fanaaniinta laga dhigi karo kuwa aan bulshada kaalin ku lahayn, oo aan wanaagsanayn, oo dhibaataysan, oo mar walbaaba ah kuwa dhibaatada bulshada ka shaqeeya. Kaba yare oo hooyo Soomaaliyeed ah oo ku nool dalka Mareykanka, dhawaanna la filayo inay soo gaarto dalka Kenya oo ay uga sii gudubto dhinaca Garowe iyo weliba Jigjiga, ayaa waxaa warbixinta ay soo qaadatay ee ay daabacday si toos ah ay Soomaalida ugu dhaga hadashay inay yihiin kuwa waxyaabaha qaar xalaaleysanaya, qofka fanaanka ahna ka dhigaya qof iyaga ay ka wanaagsan yihiin oo qofkaasi ay liidayaan. Haddaba qoraalkan ku muuqda ayay soo qaadatay fanaanada, waxayna ku bilowday: Soomaalidu waa dad runta neceb oo beenta iyo isdabamaryeenta jecel. Waa qowmiyadda keliya ee qofka fanaanka ah uu leeyahay beenta iska daaya, oo xaqdarada iska daaya, oo tuuganimada iska daaya, oo xaqa u heeliya, oo runta taageera. Soomaali qofkii fanaan ah waxay u haystaan fikir xun oo ah dullinimo, xaaraan cunnimo, iyo in haddii aad fanaan tahay in aad Ilaahay ka fogaatay. Haddaba aniga oo fanaanad ah oo ay fikirkaas qaldan iga haystaan ayaa waxaan leeyahay war wanaaga ka shaqeeya, oo beenta iska daaya, oo xaqa u dirira, oo musuqmaasuqa joojiya, oo meel fiican oo la hubo wax ku baxsada, oo dadka masaakiinta ah ee baahiyaha dhabta ah qaba caawiya, oo tuugada aan iska ilaalino. Anigii fanaanada ahaa oo fikirka qaldan ay iga haysteen ayaa sidaas taagan, ayay tiri. Koodii sheekha sheeganayay anigii ayuu isoo maagayaa, weliba isagoo igu haysta maxaad runta iyo xaqa uga hadlaysaa, dulmi cad iyo gardaro iyo aflagaado aan geed loogu soo gaban. Markaasaa welibana isagii dulmiga lagu sii taageerayaa, oo welibana sheekh loogu sii wacaya. Waa dad noocaas ah. Marka Soomaali inta aan ka bartay igu filan aniga, ayay tiri fanaanada Farxiyo kaba yare. Farxiyo kaba yare dhaleeceen xoogan ayay kala kulantay dagaal dhowaan ay la gashay Sheekh Badbaado, iyadoo ku hanjabtay inay imaan doonto dalka Kenya oo Sheekh Badbaado uu ku nool yahay, tallaabana ay ka qaadi doonto. Sidoo kale ladan ayay isqabteen oo warbixintan si maldahan ay ugu xustay fanaanada, isla markaana waxay sidoo kale iska fogeysay inay tahay qof aan waxba garanayn oo bulshada kaalin wanaagsan aan uga jirin. Fanaanada Farxiyo kaba yare oo inta badan ah fanaanad fankeedu dadka ay aad ugu wada xiran yihiin, waxa ay tahay markii ugu horeysay oo dagaallo isdaba joog ah ay gasho. Dad badan ayaa weerar ku qaada commentiska, markaad fiirisid dad badan ayaa wax ka sheegaya sinjiyadeeda, qabiilkeeda iyo shakhsiyadeeda. Laakiin marka aad fiiriso waxyaabaha qaar ay xustay fanaanadu waa waxyaabo bulshada dhexdeeda ka jira, oo qofka fanaanka ah dadka intooda badan fikrado kala duwan ayay ka haystaan. Laakiin ogow, fanku haddii wadan uu ka jiro,
fankaas ayaa laga eegtaa wadankaas dhaqankiisa, heerka bulshada wanaaga uu ka taagan yahay, dadka iyo weliba sida ay isugu xiran yihiin, jacaylka, nacaybta, heybsooca iyo weliba in dhaqanka qofka uu wanaagsanaado. fanku waxaa dunida u arkaa meesha kaliya ee laga qiimeyn karo hadba bulshada markaasi fanaanka uu ka soo jeedo. laakiin hadda dunidii casri ayay noqotay oo fankii wax badan ayaa iska bedelay. fankii waxa uu socdaa meel dhalinyarada oo kaliya ay fahmi karaan, dadkii waayo u jooga ahaana ay ka wada leexdeen. fanaanka Soomaaliyeed ee maanta jira waxaa suuragal ah ama inta badanba dhacda heesta uu soo qaadayo inaysan ahayn mid faaf reeban oo ereyo badan oo qariban oo bulshadaan u wanaagsanayn in dhagahooda ay maqlaan ay ku jiraan. sidoo kale abwaanka Soomaaliyeed ee maanta jira ee da'yarka ah isaguna waxa uu bulshada inta badan la soo shartagaa erayo aan wanaagsanayn oo aan la soo faaf reebin oo bulshada kicin ku sameyn kara, dadka nacayb gaara ku abuuri kara iyo bulsho hadda midaysan ama dad walaalo ah oo midaysan kala dili kara. iyadoo xaalka uu sidaa yahay ayay Farxiyo Kaba Yare ku nuxnuxsanaysaa in iyadu mar walba ay tahay shakhsi fanaan ah, haddana wanaaga ay farayso, tuuganimada in la iska daayo, in qabyaalada la iska daayo, in la iswalaalsado, in musuqmaasuqa la joojiyo, wax walba ay iyadu ku baaqayso. laakiin dadka qaar ee commenteska ka bixiyay ayaa iyadiiba weeraraya oo sheegaya haddii intaas oo dhan aad og tahay maxaad fanka uga jirtaa, fanka maad isaga baxdid iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Farxiyo Kaba Yare tan iyo markii ay isqabteen Ladan Foundation oo horaan ay kaalin ka qaadatay caawin loo sameynayay xilli ay xanuun sheeganaysay ramadaantii aynu ka soo gudubnay ayay sheekadan ka soo bilaabatay. waxayna si isdaba jooga u soo qortaa boostyo, mararka qaar muuqaalo ay iska soo duubtaa fanaanada iyadoo si toos ah u weeraraysa shakhsiyaadka aflagaadada u geysta, isla markaana waxay si toos ah fanaanada ula dagaashaa cid kasta oo shakhsiyadeeda ku soo xadgudubta, iyadoo mararka qaar dib uga qoomamaysa oo soo qorta boostyo ay markaasi ku muujinayso inay aad uga xun tahay aflagaadada tirada badan ee ka imaaday, laakiin iyadu marka ay xanaaqsan tahay aysan isxakameyn karin. haddaba adiga sidee ayaad u aragtaa fikirkan ay soo bandhigtay fanaanada Farxiyo Kaba Yare? qaybta commentiga fikirkaaga inoogu reeb. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay, subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto naga ilaabin. mar kasta iyo meel kasta oo aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida had iyo goorba aad ugu xiran tahay muuqaalada aan sida joogtada ah kuugu soo gudbino. adiga sidee ayaad u aragtaa fikirkan ay soo bandhigtay fanaanada Farxiyo Kaba Yare? qaybta commentiga fikirkaaga inoogu reeb. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay, subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto naga ilaabin. mar kasta iyo meel kasta oo aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida had iyo goorba aad ugu xiran tahay muuqaalada aan sida joogtada ah kuugu soo gudbino. mahadsanidin.